مسؤولين تكل الدول حكومة حلابوركا هبولي إذا قرن كجمهورية الصوماليلاند خبرات هدها يدغنكا وأير يدل يرى أوير يركبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تشرف وين يفرحان قارا يتهاي إن كسو غيب قالوا فوريتانكا شروين هذا كهير قرن جمهورية الصوماليلاند ومضل آدو قيمة بدن وإنه يسوون نمي إنه ندب من العصنة سويال كي دغنكا إنه كان نمي إسلام مركانا إنه فهمنه وقت إنه تشوفنه ساينو صور بحاول قادنه هناك وفي عن إنه مستقبلك وهوري مرين كرو وقنا فايدة سكرو دغن كينا هذاك دغن والروح ده بالشدة واساس كابترسينها يصور عومته وضنته إنه ترشة شيل الشيء نهره سأينانو كلام بن وجهيها إنه هاجية قيم كين حبدغن كيني يدين تاني ودغن حرا ودلد oo sida bulshooyinka qaar dibadda la inooga soo dhoofin waa dhaqan ku aroora sooyaalka nolosheena xoolo dhaqato caqiidadeedna islaamnimo iyo qisaska ku duugan hidaheena oo ka turjumaya aataarta kumanaanka sano soo jirtay aynu ka soo gaadhnay awowyadeen waa dhaqan caan ku ah sharaf dhowrasho anshax wanaag iyo aqoon aad u qoto dheer kaasoo weelkiisu ahaa afkeenna hooyo gaar ahaan gabayadii iyo buraanburkii aynu awowyaasheen iyo ayeeyayaasheen ka soo dhaxlay ee ay noo kaydiyeen oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aanay hodannimada afkeennu u gurin dhaqanka ummadeed wuxuu muhiim u yahay horumarka bulshada waayo waxa uu sees u yahay kalsoonida wadajirka iyo muwaafaqada bulshada dhexdeeda waxa uu dhiirigelinayaa hal-abuurka iyo curinta bulshada arrimaha la og yahay inay lagama maarmaan u yihiin kobaca iyo horumarka ummadda Somaliland waxay ku faani kartaa in dhaqankeedu uu kaalin guula keenay xilligii halganka hawlaha nabadeynta ee joogtada ah iyo xitaa marar badan furdaaminta arrimo siyaasadeed oo cakirbay nasiib darro maanta qabyaaladdu waa khatarta ugu weyn ee ay wajahayso dowladnimadeenna casriga ah iyo guud ahaanba bulshooyinka gobolka Geeska Afrika si aynu taas uga hortagno waxay xukuumaddu dhiirigelinaysaa isdhexgalka bulshada waxaanu ka shaqaynaynaa in ubadkeena aanu xilliga waxbarashada ku barbaarinno la dagaalanka qabyaaladda waxa la dhiirigelin doonaa barnaamijyo iyo ololayaal bulsho lagaga wacyigelinayo ummadeenna qabyaaladda waxaanu xukuumad ahaan ilaalinaynaa hidaha iyo dhaqanka Somaliland si gaar ah aataarta dhaqankeena oo ka turjumaya hidaheena sidoo kalena waxaanu dhiirigelinaynaa inaynu xoojino nidaamka shareecada iyo dhaqankeena ku aroora xallinta khilaafaadka sidii halkan xeerbeegtiisu uga garnaqaysay gaar ahaan dhulka ka durugsan goobaha uu garsoorka dawladdu aanu gaadhsiisnayn innagoo mar kasta sees uga dhigayna sharciga iyo xeerarka dalka waxaanu adeegsan doonaa xoojinta diblomaasiyadda dhaqanka oo ah in bulshooyinka dunidu
aynu barno dhaqankeena hodanka ah iyo sida uu caawiyo dhaqankeenu saaxiibtinimada tala wadaagga derisnimada iyo iskaashiga si ay u fahmaan qiyamkeena iyo jihada aynu u soconno mustaqbalka xukuumaddu waxay samaysay abaalmarinta sanadlaha ah ee xasan sheekh muumin oo lagu guddoonsiin doono dhalinyarada leh hibada halabuurka fanka iyo suugaanta shirkan oo soconaya 2 maalmood waxaan ka filaynaa inuu barbilow u noqdo isbeddelka aynu ku adkaynayno kuna ilaalinayno kuna muujinayno dhaqankeena ugana hortegayno inuu ka lumo jiilasha soo socda shirka waxa laga sugayaa qorshe xooggan oo lagu ilaalinayo agabka dhaqanka iyo aasaarta qadiimka ah ee dalkeena waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo wasaaradda gacan ku siisay in shirkani qabsoomo Soomaaliland ha noolaato. Salaamu calaykum.